بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم annagoo ah culimada Soomaaliyeed runtii waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa kuna faraxsannahay dhaqanka labada beelood beesha habar jeclo iyo waxa weeye beesha dhulbahante baaqa nabadeed ee waxa weeye hawada la isu mariyay runtii waxa weeye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan Soomaaliya oo dhanna waxa weeye u dana ay tahayna waxa weeye in lagaga daydo waxaan waxa weeye xoojinaynaa in nabadda laga shaqeeyo oo waxa weeye dadka dhaqanku cuqaasha iyo isimadu hawsha waxa weeye ay guntadaan in il gaara lagu hayo dadka dhalinta ah waxa weeye labada dhinacba waxa weeye hubka wata waxaanu leenahay qajaankaas marka maqajaankii dagaalka hadda mar hadduu reeraha iyo galo xaafadaha iyo shacabka dhexdiisa waxaa la qaataa marka uu meelo kale ku socdo laakiin wuxuu hadduu noqdo shacab isdilaya iyo reera islaynaya waa maqajaanku sheegay saqajaanka midhaayid maqajaan baa ka sii xun qabto wixii colaad hurinaya sharna la yidhaahdo joojiya insha allahu tacaala lana dedejiyo oo waqtiyo badan baa lagu baaqayay nabada aan bahasha lasii raajin si aan dadka sharka wadaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu nabadoonada beesha dhulbahante oo baaq u diraya beesha habar jecelo si looga gungaaro in la joojiyo dagaalkaas daawasho wanaagsan akhyaarteena sharafta leh fadlan waxaan idiga codsanayaa inaad meel dheer aad gaarsiisaan يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلهي جل وعلا وحنا فريا إن نخبغنه وغدينته أمدنيهي diintana ku dhaganaano oo ku camal fallo inaga marka ka amba qaadayna ilaahay jalla wa ala waajibka uu saaray culimada ee muslimiinta meel ay joogaanba gaar ahaan xilliga fitanka iyo dhibaatadu taagan tahay in ummadda lagu waaniyo ilaahay daacadiisa laga digo wixii macsi ee dunuubta ah ilaahayna jalla wa ala uu tilmaamay dambiyada kabaa'irka waaweyn inuu ka mid yahay dhiga islaamka oo la daadiyo si khadra ah waxaa halka culimmadu ay soo saartay bayaan iyo baaq ku aadan xaaladda colaadeeda ka taagan beelaha habar jecel iyo dhulbahante taasoo dheg badan oo ku daatay iminkana aad mooddo in gulufyo colaadeeda ay jiraan wada waxgaradku dhan walba ay ku baaqayaan nabad marka waxaanu raacinaynaa annagu haddaan culimadii nahay insha allahu tacaala baaqan ku aadan xaaladdan tilmaamay oo ah in nabad lagu soo dabaalo marka koowaad culimada shareecadu waxay ku waanaysaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan inay ilaahay ka baqaan jalla wacala dhammaan arrimahoodana ay waafajiyaan shareecada islaamka wixii khilaafana ay ku xalliyaan shareecada iyo isu tanaasul iyo heshiis waara qodobka labaad in la joojiyo daadinta dhiigga islaamka ee xurmada leh ilaahay xurmeeyey jalla wacala lagana hortago wax kasta oo sabab noqon kara ee dhiigga daadintiisa qodobka saddexaad waxaa culimmadu ugu baaqayaan beelaha dhulbahantiya habar jeclo ee wadwadaagta ah dariska ah dhaliyada ah inay arrimaha dhexdooda yaalla iyo khilaafaadka ku dhammeeyaan isafgarad ogaadaanna inayan kala go'ayn cidna isu bedelaynin sidaa darteed nabadda afar saacadii ilkaaba isugu geeyaan qodobka afraad waxaan ugu baaqaynaa beelaha dhulbahantiya habar jeclo inay u dhaga nuglaadaan dadka muslixiinta ah ee jecel nabaddooda iyo wada noolaanshahooda qodobka shanaad waxay culimmadu ugu baaqaysaa cid kasta oo fidmada qaybka ah in ilaahay ka baqaan joojiyaanna ololaha dagaalka afxumada warbaahinta la marinayo kuna bedelaan hadal wanaagsan iyo islaax kuna xisaabtamaan aakhiro iyo la kulanka ilaahay jalla wacala qodobka lixaad waxa culimmadu kuwaani labada beelood inay baaqa nabadeed ay soo saaraan ay daadejiyaan kuna daraan farsamadii lagu taabagelin lahaa nabadda sida xakamaynta dhallinyarada hubka sidata iyo wacyigelinta bulshada labada beelood ugu dambeyn waxay culimmadu ugu baaqayaan dhallinyarada hubka sidata inay ilaahay jalla wacala ka baqaan ilaaliyaan dhiiggooda iyo tawalaalahoodba
inay ku daadato dhiigu xaqdarana ka ilaaliyaan aakharana ku xisaabtamaan باقي تضوى غضب وها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. waxaan leeyahay insha Allah sida culimadu uga hadashay waxa loo baahan yahay in la joojiyo dagaalka beelaha ee la horinayo runtii cid walbana ay xil iska saarto inuu joogsado waxa aynu ognahay boqor buur madow baan hadal ka qabtay oo yiri waa maqajaankaas marka maqajaankii dagaalka hadda mar hadduu reeraha iyo galo xaafadaha iyo shacabka dhexdiisa waxa la qaataa marka uu meelo kale ku socdo laakiin waxa hadduu noqdo shacab isdilaya iyo reera islaynaya waa maqajaanku sheegay saqajaanka midhaayid maqajaan baa ka sii xun marka waxaan leeyahay waa dagaal saqajaana oo aan faa'iido lahayn wax laga gaadhayaana ma jiro Soomaalina waa og tahay qolo waliba waxa ay ka faa'iiday wixii dhacay iyo dagaaladii dhacay waxba laga faa'iidi maayo marka insha Allah ta'ala hal la joojiyo hana lagu dadaalo in inta hadhay la badbaadiyo halka ay hadda maraysana lagu qabto wixii colaad hurinaya sharna la yiraahdo joojiya insha Allah ta'ala lana dedejiyo oo waqtiyo badan baa lagu baaqayay nabada aan bahasha la sii raajin si aan dadka sharka wadaa saan mar horeba u sheegay aan looga faa'iideysan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد waxaan halkan doonaa inaan baaq uga jeedino beelaha walaalaha ee deriska ee wax badan wadaaga islaamnimo derisnimo galeeyo xidid waxaan leenahay wasulxu khayr sulxigu waa khayr ilaahay baa subxaanahu wa tacaala sida quraankiisa kariimka ku leh waxaan filayaa in laga dheregsan yahay dhibaato inta ay la eg tahay iyo khasaaraha ay keenayso in badan oo horena waxaa soo dhex maray colaado iyo fitan noocan oo kale ah waana laga soo gudbay waa la xalliyey maantana waxaan rajaynaynaa dadka ahlul xalli wal caqdiga ah iyo dadka caqliga wanaagsan iyo fitrada saliimka xambaarsan inay arrinta isu taagaan oo nabadda taageeraan dhalinyaraduna ay ilaahay ka baqdo oo qoriga aysan noqonin wax uu hago oo hogaamiyo caqligoodii iyo garashadoodii iyo diintoodii iyo akhlaaqdoodii soo noqdaan saasaan ugu baaqana ilaahna waxaan ka baryaynaa inuu islaax khayr qaba dhex dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caqligii iyo rushdigii u soo celiyo aafaadkii iyo dhibaatooyinkii dhacayna ilaahay intaa kaga ekeeyo dadkii dhintay ee ka dhintay labada dhinacna ilaahay u naxariisto intooda dhaawacna ilaahay bogsiiyo ilaahayna waxaan weydiisanaa tawfiiq iyo nabadgelyo waxaan mar kale ku celinayaa in nabadda xaggeeda la xoojiyo nicmada iyo barwaaqada uu ilaahay deertanna siiyeyna shukrigeedu uu noqdo in nabadda la dabro oo aan lagu kibrin ilaahay nicmadiisa si aanay inaga zuulin oo inaga baabi'in ilaahayna subxaana wa tacaala nabadgelyeeda islaaxa siiyo labada beelood ee walaalaha ah ee wax badan wadaaga sal allah wasalam calaa nabiyina daankii iyo wixii dhaaddaadida ahaaba culimmada dhameeyey laba fariimood baan runtii aan ku ladhi lahaa oo aan u dirayo laba qaybood oo bulshada ka mid ah oo colaadda iyo nabaddaba saameyn weyn ku leh qaybta koobaadi waxa weeye waa dadka mas-uuliyad ama ammaano ama xil noocuu doonaba ha noqdee ummadda u haya ee labada dhinacba ah ama xil siyaasiya ha noqdo ama xil dhiqameed ha noqdo ama xil waxa weeye codkornimo ha noqdo ama xil cilmiyeed ha noqdo in waxa weeye kelmadda ay dhahayaan ay u meeldayaan in kelmadda ay dhahayaan mustawaha ay joogaan ee ummadda u fadhiyaan ay waxa weeye ku jaango'naato in waxa weeye kelmadda ay dhahayaan ee miidiyaha marinayaan mar kastaba waxa weeye mid u adeegaysa ay noqoto waxa weeye aakhiradeenna ilaah ka baqeenna nabadda walaalnimada midnimada iyo wadajirka ummadda waxa weeye walaalaha wada dhalatay ee Soomaaliyeed arrinta labaad ee aan dirayaa waxay tahay waa dhalinyarada qoryaha sita ee furimaha waxa weeye isku dhow jooga waxaan leeyahay aakhiradiina u baqa waxa weeye qori aad wadato oo walaalka ku dhufato ama uu waxa weeye kugu dhufto naf islaama ku go'da naf islaama ayaa ku go'da waxa weeye naf islaam oo la gooyo la qurgooyana ilaahay quraankiisa wuxuu ku tilmaamayaa aadamihii oo la wada qurgooyay naf islaama taada iyo tawalaalkaayoo la bixiyaana waxay la mid tahay waxa weeye dadkii aad bixisay oo badbaadisay waxaan leeyahay haddii markii hore wuxuun si kale waxa weeye u jireen laakiinse maanta waxa weeye labadii dhinacba waxgaradkoodii ay nabad sheegayaan oo ku dhawaaqayaan oo ku baaqayaan
nabaddaa la hirgeliya la qaata waxa weeye dhib dambe yuu dhicin cidina uma taagayso ummad islaam oo Soomaaliyeed oo isku dhimata hooyooyin waxa weeye naga gablama marwooyin waxa weeye inaga rag waaya ilmo iyo ubad waxa weeye inaga agoomooba uma hayno halka xabadda lagu joojiyo waxaan ugu yeedhayaa oo sidoo kale waxa weeye dadka waxgaradka ah ee baaqyada diraya inay furimaha yimaadaan in dhalinyarada wacyigelin badan loo sameeyo in aakhirada iyo ilaah ka baqa wax badan hadday taasi inoo toosto inoo hagaagto wixii kaleba waa inoo taabagelayaane inta aad loo xoojiyo waata ilaahay subxaanahu wa tacaala leeyahay fattaqullaaha wa aslixuu daata baynikum ilaahay ka yaaba oo heshiiya waxa weeye wax kasta hadalkaynu dhahayna iyo falkaynu samaynaynaba alla ka baqa بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم annagoo culimada Soomaaliyeed runtii waxaanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa kuna faraxsannahay dhaqanka labada beelood beesha abar jeclo iyo waxa weeye beesha dhulbahante baaqa nabadeed ee waxa weeye hawada la isu mariyay runtii waxa weeye waa arrin aad iyo aad u wanaagsan Soomaaliya oo dhan waxa weeye u dana ay tahayna waxa weeye in lagaga daydo waxaan waxa weeye xoojinaynaa in nabadda laga shaqeeyo oo waxa weeye dadka dhaqanku cuqaasha iyo isimadu hawsha waxa weeye ay guntadaan in il gaara lagu hayo dadka dhalinta ah waxa weeye labada dhinacba waxa weeye hubka wata waxaanu leenahay nabaddaas ayaa waxa weeye lagu dhaqmi karaa waxaanu leenahay dad walaalaa weeye ayaa tihiin ehel ayaa tihiin qaraabo ayaa tihiin dad isku deegaan oo ood wadaagta ayaa tihiin ma kala guuraysaan halkaas ayaad waxa weeye aad deganaan doontaan